بسم الله الرحمن الرحيم تليها ciidanka la dagaalanka argagixisada iyo mukhadaraadka tahriibta iyo wixii dhibaato ah professorada halka fadhiya saxaafadda madaxa bannaan dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waa dhaweyd oo taqriiban taariikhda ma xasuusto rag hadda 2 abriil rag hadda ay ka mid yihiin nimanka hadda aqoon-yahaniinta dalka baa ku dhawaaqay urur la yiraahdo saadicuuna bilxaq arrintaas waxay bixisay kacdoon badan iyo buuq badan iyo qaylo badan maamul gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisadu waxaanu juhdi gelinay inaan horta cid ururkaas ka mid ah aanu isaragno maxay yeelada kuwa shacab horta bal inta aan dagaal oo takfiirkii imtixaanka ahaa weeye arrintaas waxu kala qanacay waxaanan isla garanay qodobada halkan aan ka akhrin doono qodobadaas qodob koowaad wuxuu yahay inaysan ka mid ahayn urur dibeedka takfiir wax lugana aysan ku lahayn shaqana aysan ku lahayn aynu arkaan fakar qaldan wasaas garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin oo aysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira inaysan samayn karin wax tababar ciidana ama wax u eg toona inaysan siyaasad ku jirin aysan gelina karin kana hadda ka mid nahay siyaasadda inay nabadgelyada iyo xasiloonida Puntland ka jirta wax dhibaato aysan ku hayn isla marhaantaana ka mid noqon kara cid dhibaato ku hayso inay diyaar u yihiin inay la kulmaan dawladda culimada diinka iyo cid kasta oo sida iyagu yihiin si kala aaminsan isla markaana ay ka qarciyaan tabashadooda in dawladdu haday u baahdaan ay la kulmi karaan annaga haday noo baahdaan inay noo imaan karaan dadka shacabka oo muwaadiniinta ay ka mid yihiin wax shidaan u hay in dawladda iyo shacabka ay ka aaminsan yihiin dad muslima oo aysan jalankuna uu hadli doonaa waxaan rajaynaynaa in ay wixii hadda ka dambeeya ay noqoto war xuloo lagu waa dad shacabkooda ka mid ah oo aan shiddo ummadda ku hayn inay ka mid yihiin intaasaan rabaa inaan sheego intaasaan ku salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. horta marka hore waxaan maaragtay salaamaya oo aan maaragtay ka mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo qaabilaadda wanaagsan ee gudoomiyaha gobolka iyo generaalka General Muxidiin sida wanaagsan oo qaabileen sida wanaagsan ay maaragtay runtii inoo xog wareysteen aan maaragtay waraalika waxaan uga mahadcelinayaa horta marka hore anagu waxaan nahay sida aan horeyba u sheegnay dad ka tirsan ama xubno ka tirsan jamaacada saadicuuna bilxaq ayaynu nahay sidaan hore u sheegnay hadafkayaga iyo dantayadana waxaa weeye inaan dadka ugu yeerno diinta xaqa ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu basharka oo dhan iyo aadanaha oo dhan ugu talagalay inaynu maaragtay dadka si nabadgelyo ah oo naxariis ku dhisan inaan dadka ugu yeerno annagoon adeegsanaynin hub iyo dagaal iyo cunfi annagoon adeegsanaynin runtii annagu waxaa weeye maaragtay hadafkayagu dadka inaan u saxno islaamnimada saxda ah ma nihin dad bulshadooda ku dhex noolaa oo weligood ku dhex jiray baanu ahayn haddana maaragtay dareemay xilli ay wax caddeyn karaan ama wax soo gaarsiin karaan dadka inay tahay marka annagu ma rumaysanin
in annaga keliya aynu nahay muslimiin ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin annagu ma rumaysnin waxaan rumaysannahay yacni in qof walba hadba siduu ilaahay ugu dhawaado oo ilaahay uu addoon ugu noqdo arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysannahay marka taa weeye tan aan maaragtay runtii rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u caddayno runtii marka xaqiiqada aynu ka hadalno waxyaabaha lagu tuhumayo oo ay ka mid tahay arrin bay dadkan wax u qarsoon yihiin annaga wax noo qarsoon ma jiraan wax alle waxaan rumaysannahay dariiqada aan ku shaqaynayno sida dadka aan diinta ugu yeerayno intaba waxa weeye dadweynaha ayaan la wadaagnay xataa kuma aynan ekaanin masaajid keliya ama luuq maaragtay dadka lama aynan gelin dadkoo dhanna meel ay ka wada arki karaan waxa aan rumaysannahay ee waxa dadka aan ugu yeerayno ayaan maaragtay xaqan u caddaynay marka ma nihin dad raba inay mugdi ku shaqeeyaan waxaan rabnaa inaan noqono dad waxooda uu yahay transparent waxooda shafaafiye ay leeyihiin waxooda bannaanka ay yaalin ayaan rabnaa inaan noqono marka dowlad shacab intuba waa dad dadkayaga ah oo aan rabno inaan wanaagooda badbaadadooda horumarkooda inaan ka shaqeyno maaragtay sidaad wada garanaysaan annagu waxaan ahayn dad bulshada u shaqaynayay oo haddana diyaar u ah inay u shaqeeyaan ka shaqaynayay waxbarasho ka shaqaynayay dhismo ka shaqaynayay caafimaad ayaynu ahayn marka haddana waxaan u taagannahay horumarinta dadka wanaagooda maslaxadooda ayaan u taagannahay waxaan caddaynayaa taasi inaysan ku qarsooneen ujeeddo kale oo ah siyaasad iyo maamul doon inaysan ku qarsooneen hadafkaygu ma aha inaan maamul doonayno inaan siyaasad dadka ku maamulno inaan doonayno hadafkayga waxaa weeye dadkayaga inaan hoos ka dhisno meel hoose inaan ka dhisno xagga hoose inaan kasoo dhisno dadkayagu ay helaan diintii saxda ahayd magarata yani sax dad baa hadda u taagan oo diintii dadka gaarsiinaya laakiin waxaan rumaysannahay inay sidii saxda ahayd aysan ugu istaagin in dowladda macnaa ayan noo qaban cid kale warkeeda annaga ay naga dhagaystaan oo annaga ayna waraystaan ayaan maaragta u cadaynaynaa guntii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay jamaacadan waa jamaacaadka islaamka ka mid ah ma aha mid ka duwan waa jamaaca hadafkeeda uu yahay badbaadinta horumarinta sare u qaadidda iyo in ummadaan ay noqoto ummad caalamka wax la qaybsata waxaana dhibaya burburka dadku ay ku jiraan waxaana dhibaya baaba'a dadkayga haysta waxaana dhibaya kala qoqobka dadkayga haysta waxaana dhibaya yani in dunida islaamka ay noqoto meesha hubka lagu tijaabiyo oo dadka lagu baabi'iyo inay noqoto ayaana dhibaysa marka waxaanu nahay dad ka kooban qomiyado badan ayaanu nahay hadafkeena waxaa weeye dariiqaas ilaahay inaan ku raaligelino diyaarna waxaan u nahay wax alle waxa aan kala kulmayno hadday tahay xarig hadday tahay dil hadday tahay wax kasta yani anagu hub ma qaadanayno dadkaygana dagaal iyo hub iyo cadaadis iyo qasbid macnaa ma rumaysan sidaada diin macnaheedu ma aha mid ku imaan karta qasab diin waa ka qancin fahamsiin sharaxaad ay u baahan tahay maarata hub waxaa qaadan kara dowlad baa qaadan karta hub dowlad baa qaadan kartaa maalinta dowlad islaama la helo oo weyn oo dadkao dhanna ay raalli ka yihiin maalintaas maaragtay jihaadku waa imaanaya maarata laakiin inta ka horeysa waa in dadkii wax la baro wax loo sheego la badbaadiyo ayaa hadafkaygu yahay maarata intaasaan oran lahaa waana ku mahadsan yahay guddoomiyaha fursadda uuna siiyey ee jaaniska uuna siiyey maaragtay mar labaad baan uga mahad celinayaa guddoomiyaha ee jenaraal muxidiin ka go-an ma aanan ahayn dad maaragtay ummadda ka fog ummadda wax waa la qabanaynay waa la shaqaynaynay waxbarashadeedaan ka shaqaynaynay intaas waxaa weeye wanaag baanan doonayna maarata marka 40 sano oo aan maaragtay hawshiyadu ay hoos macnaa aan u dhigayno oo laakiin intii bulshada aan isniraahno way idin maaragtay ka dhagaysan karaan ama way idin soo dhaweyn karaan ama waxbay idin la fahmi karaan ayaanu soo dhaweynayna oon ku barbaarinayna oon ku dhisayna maarata marka dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan maxaa intaa isu qarinayseen marka hadafku wax kale ma ahayn waxaa weeye xilliga aan bilownay ee waddanka dowlad adag oo diinta la dagaasha ayaa jirtay oo dad badan wadaada ah xataa laysay ayaa jirtay marka annagoon tabaraysan oon xididaysan inaynan yani in ceeriinka nalagu baa hadafkeenu ahaa marka haddana maarata waxaa weeye anagu ma nihin dad xumaan dadka u horseedaya dhibaato u horseedaya waxaan necebnahay ummadayada in dhibaato u soo gaaro ama burbur uu ku yimaado intaasaan oran lahaa wabillahi tawfiiq wallahu aclam.
ururadaas waxaan ka aaminsannahay qolada takfiirka la leeyahay anigu ma naqaan si isu yaqaanin baan u naqaanaa oo ah aljamaaca alislaamiya baan u garanaynaa marka waxaan rumaysannahay waxyaaba badan oo ka qaldan inay jiraan dhinaca caqiidada iyo manhajka inay jiraan waan isku khilaafsannahay yani qolada shabaabkana waxaan rumaysannahay dariiqada ay adeegsanayaan inay tahay dariiqa aan diinta ilaahay u gargaaraynin inay tahay bal dadkii diinta kasii ergeysa cadowga islaamkan uu ka faa'iidaysanayo waddankana burbur iyo halaag u horseedaysa inay tahay waxaa hadalkaada ku jirtay saxiix diinta iyo badbaadinta bulshada puntland ama soomaaliya guud ahaan boqolkiiba boqol dadkeedu waa dad islaam oo diinta kusoo barbaaray waxaa kusoo soo kordhigmay horta ereyga boqolkiiba boqol inuusan muslim ahayn waa caddahay waxaa xaqiiqo ah in dad badan oo kirishtaan ah oo hadda iscadeeyey oo badan inay jiraan waxaa xaqiiqo ah inay jiraan qaar badan oo ilaahay diintiisba aan rumaysnayn laakiin magaca ka ah islaam oo maxamed iyo cali cusmaan la yiraahdo marka anagu hadda oran mayno mujtamaca oo dhan waa gaalo oran mayno mujtamaca dad muslimiin ah waa ku jiraan dad gaalo ah waa ku jiraan kuwa aan la aqoonina waa ku jiraan maarta marka anagu waxaan rumaysannahay miisaan inaan dadka u dhigno ah miisaankaas oo ah ilaahay kitaabkiisa iyo maarta sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam in dadka loogu yeero oo macnaha asalkan uu yahay qofkan yani kelimadaas laa ma jiraan macnaha kuwa kale oo aad tiri macnaha annagoon xoogsan oo weli ceyrin in ceyrin macnaha nala cuno ma jamaacadaha kale oo ma fahmin su-aashaas jamaacadaha macnaha qolyaha kale oo aad leedahay macnaha sida takfiirka oo kale macnaha qolada adigo aad isleedahay way idinka soo horjeedaan fikirkiina aad sheegaysid oo ma aniga macnaha jamacada takfiirka idinka soo horjeeda ma dhihin anigu taa ma oran dowladda kacaankii uu ka hadlay dowladda kacaankan ka hadlay dowladda kacaankii waatay culamo badan laysay oo keliya ka hadla hal masalo ninkii siyaad baraha uu yiri maartay raggii haweenku waa sameeyey 11 oday baa hal maalin xabsiga itiirka lagu xiray oo aafadii ka dhacdayna ilaa maanta Soomaalida ay haysatay ana marka dadka middaas aaminsan yani ilaa hadda anagu labadeenaan idiin sheegi karnaa hadda kulliba maartay bini aadamku waa badan yahay dadku waa jiri karaan waxaan tiri waxaan leeyahay inaan intaan ku xoogaysayno 40 sano loo qaaday marka waxa aad hesheen hadda 40 sano ay tahay hadda oo antii awal waan noqon lahaa laakiin waxaan inta maanta waxa aad hesheen ma hayaan ogaado intaas ay ku awoodeysteen miyaa qadteen waxbarashooyinka oo dhan baa qabsateen masoo dadkii kaadiriin badan baa samaysateen maxay tahay falsafada ka dambaysa falsafada ka dambaysa waxa weeye anaga in waxa aan aaminsanayn bini aadam inay gaareen waxaan aaminsanay anigu risaalada naabis risaaladana dadku inay macnaa in dadkii ay gaari karto cadad macquul oo dad badan gaarsiin karana inaynu noqonay kalena maartay yani in risaaladeena aan helnay wasiilo bini aadamka meeshuu jooga aan wax ku gaarsiin karo inaan helnay oo hadda مثلا internetkaas oo kale maartay yani social media yani inuu yahay majaal iska furan oo dadkoo dhan aan wax ku gaarsiin karto marka maanta wixii aan qabnay inaan caddayn karno oo aan sheegi karno laakiin hadafkuna uu yahay dadkii yani maalintaa hore wax aan dadka wax ku gaarsiin karnaa waa iska yara cadadkuna aad buu u yaraa marka asbaabtaasaa keenaysa yani inaan banaanka soo istaagi karno waxaan daawaday soo deysay oo meelo kala duwan ka baxay waxaan arkay taqriiro carabi ku qoran oo baraha bulshada soo gelisay waxaan arkay xalqad masar laga soo daayay oo carabi ku baxaysay iyo laba xalqadood oo dadka koonfureed duubay iyo dadka waqooyi duubay aad waxaan u maqlay kelmadda Soomaaliya maanta xor ma aha waa wadan loo taliyo weeye maartay nidaamka iyo barnaamijta ku socdana waa barnaamij reer galbeedku ay dejiyeen weeye shaki ma laha dastuurka Soomaaliya loo sameeyayna gabar muxuu ahay yani wadan Latin America kamid ah ayaa flash ku waday baa la yiri BBC da ka dhageystaan magarad marka yani dad waxaynu nahay barnaamijta loo sameeyo sida aynu u farxalan lahayn iyo sida aynu u labisan lahayn iyo sida aynu u dhaqmi lahayn waana loo dejiyaa maartay dad loo dejiyaa maahay marka anigu marka ma dhahayo Puntland kama hadlayo Soomaaliya kaliya kama hadlayo laakiin caalamka islaamiga loo yaqaan gacan gumaysi ayuu ku jiraa oo dadban ayuu ku jiraa oo aan aad u muuqan marka xukun iyo nidaam kitaabka Ilaahay kaliya ku egna kama socdo marka intaas ka
رسالة أودان جديدة ويدان ويجري حصل رسالة أودان جديدة ويدان الحاكة الدولية وفعل سميسة أنا رسالة أودان وحوي وجارسين ويا dadkun waa dadkeena way inaan gaarsiinaan rabnaa haddii nalaga diido macduurin baynu nahay maxaa yeelay waxaan rumaysanahay nabi kasta oo soo diro ma xaq loo soo diro ambiyada ilaahay anaga ambiyada ilaahay ma gaari karno mana dhawaan karno yani laakiin ambiyada ilaahay waxaa kamid ah ruux nabi waa kamid ah keligii yimid yani qiyaamaha imaanayo iyadoo cidna isla socon nabi nuux alayhi salaatu wasalaam waxaa wama aamana macahu ilaa qaliil ya dagaalna muusan gelin maaha marka anaga hadafkeena ma hadii la aqbali waayo dagaal iyo buuq aan dhareena ma in la aqbali waayo hadii waa la aqbali waayo ma su'aasha ugu dambaysa mudada joogteen daro iyo gudahan Puntland babalka ugu horeysa xukuumadda la qalantaan mabra xeeras fahamkeeda dawladda isbarta dawladdu waxa ay soo saartaa dad ma arkin ma رقم جيبك وصافة مدينة اوكي سؤال waxaa jira cusmaad wasaaradda cadaaladda oo kale oo ah in culummadu arrimahan qodobada waxyaalaha la isku hayo ama muddo la leeyahay in la falanqeeyo degmooyin la sameeyo kuwa noocaas injaan صح maadaama arrimuhu diinta la xiro صح waxaan madaxda wasaaradda sheegtay inaa ka cagtaatay hadda maadaama shirkaan aad timaadeen waa bolis horta adoo mahadsan waa su'aal fiican baa weydiisay anigana aan ilowsanaa wasaaradda waa nala soo xiriirtay agaasimaha guud baa nala soo xiriiray maxaa cali faarax oo saaxiibkay ah baa nala soo xiriiray ballan baynu lahayn maalintii aynu ballanayna asagaa safray maalintii aynu ballannay asagaa safray aniga ninkan baa qorshahaygu ahaa inaan u tagno intuusan guddoomiyaha inoo yeerin marka annaga dad isqaranaya ma nihin guddoomiyaha wasaaradda cadaaladda wuxuu yidhi markaan soo noqdo ayaan idin yeerayaa buu yidhi marka waa war beenaa weeye inaan ka cudur daaranay maarta kama aynan cudur wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya oo muddo soo saartay toddobaadkan waxay tiri xubnahaas meesha ku arkaan hala soo qabto hala xiro ama rab cusub bay kusoo rogtay dib usoo rogtay qabasho kuma maqal Somaliland way soo saartay dadna waxay xidhaan hadda qaybtu saafir iyo loo saddex lix dhiga midana jaamacadaha Soomaaliya Puntland golaha wasiirada hadda Soomaaliya lama fadhiyo golaha wasiirada way shireen khamiistii mar kale bay taxalaysan kiisi oo ama roo kale waxyaabo kale cusub soo sameeyay intaas oo wax ka jira intaas oo waxa jiray hawlahaas marka hadda Puntland guddiga gobolka waxay soo aqoonsateen inuu isoo idin aqoonsado idinku saacaddiina inaad joogtaan oo Puntland ku dhaqantaan oo sidii naas ay nolosha u hato maadaama dawladda kale inaysaas ka jirto taas guddoomiyaha ka jawaabaya aslayaan maarta jawab hadda maadaama arrin diinta la xiriira ay la tahay xasaasiyad noocaas ah kaysay diyaar u tihiin inaad si babliga marsalooyin soo weydiiyo miidiyaha bulshada kala hadashaan wasaaradda cadaaladda xataa cusubadidaas ama bulshada culimmada arrimaha kala dootaan nidmooyinka dhagmisha anaga diyaar baan nahay wax kasta dadku ay rabaan inay ka mugdo baxaan arrintan ayada diyaar baan nahay wasaabi gudoomiyaha gobolka odayaanada jamaal iyo cabdiraxmaan بعض الصحافة تمام بوحنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وهي عن مكوضة هذا الله وشوف كرمي وحافظي قدوميها قبلك سوء تفاهم بعد عيد يعني ليش قولوا هدي الشيء بعدين ويسكت مع دايو و بعدين دتك ويسكت بيران تمام هدي وروح للشيء وعصوبة عندي جرين للشيء وهو بديه لكن قال علامة سبع الجرا من كان وحال وشاب بديه أروك اللي إلى تكفير أنا وساسا وين أرو حوجا كسر بايو سلا قركر وصارم بانركين هذا رجل الشقية هنا مجتمع كمثلي هنا اللي كلام هنا روح الله عمان هنا بين كل شيء دينته اللي سويه والله دينتي ساتل والله قبصه كتاب هلا ونغمه وضع وكله حنا وضع عنكو وحما دباتوين كهذا أنا كود عيه
waxaa ka mida waddadii iyo abaaraha jira iyo colaadaha waddadii baan ka leexan walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuc wanaqsin min alamwaal walanfus wsamaraat wabashir saabiriin yani ila wuxuu yihi waxaanu ku jirabaynaa dadka waddada ka leexday in lagu rido gaaj, in lagu rido cabsi, in lagu rido naftoo la yareeyo iska dhinto habeen walba maxaa ku dhintay maxaa lagu dayay lama gar in maalka la yareeyo abaartaasba in la yareeyo beeraha aan waxba ka soo bixin marka ciddii ku sabirta in lagu samro baa libanis in lagu samro waxaa la isku jirrabay sabirkii waa xumaaday waddadii baynu ka leexanay marka in ilaahay laga cabsado oo in waddada fiican la qaado oo xumaanta annaga gacan siin lahayn odayaashu haday meelaha mari lahaayeenoo meelaha marfishyada iyo guryaha lagu ba-ay iyo meelaha meelo badan ama dhacdooyinka dhaca hataa haddii laga sheekeeyo waxaa ka dhacay halkaa sidaa maanta sidaasa ka dha arrin xumaanaha halkaa ka dhacay masaajida laga sheego xoogaa sensitive waxaa laga qaaday oo laga qaaday qolo cusub baanu no 40 sano god ku jirtay oo hadda soo baxday waxaan leeyahay diintu asal iyo farac wey asalku khilaaf male asalka iyana ma sheegin layskuma khila iyaguna ma sheegin dadka bini aadanka ah oo ilaahay muslimka lama gaalaysiin karo waa sheegeen qolo gaalaysiinaysaa jirta oo gaalnimana u leynaysa diintu marka wixii khilaaf yaryara ama wixii furuuca laga wada hadli karo qofba waxuu si u qaadanayaa jira oo maaragtay si kale u fasiranayo waa laga wada hadli karaa wax dhiba male laakiin haddii asalka yani la gaaro ama qofka islaamnimadiisa qof halkaa iska maraya inaad tirahdo waa gaal dadka halkaa marayo abahay gaalbo iyaday waa gaalo diin ma qofkaa diin ma wado aabihiis oo dhalay oo islaamnimo ku dhalay ninka gaal ku sheegaa ma waxaan leenahay intaana haddii lahaydna waa isaga dhaweyneynaa hawshana tawshii horena sidaasay ku dhamaatay inay nimankaasu bulshada ka mid yihiin urada hadda diinigaa ka mid yihiin wax gaara iyo wax shidaa iyo wax dadka gaalaysiinta iyo layntiisa iyo midnana inayan ku shaqo lahayna iyagaa caddeeyey annaguna intaan ka rabnay intaasay ahayd baqdin baa jirtay haddii ninkii urur sheegtaahi markiiba inuu wax leynayo baqdintaasaa dadka kicisay laakiin waxaan leeyahay war inta ilaahay loo noqdo oo urur baan ahay eblow baan ahay jaamac baan ahay cali baan ahay faarax baan ahay waa 73 uu nabigu sheegay aan dib isugu noqono waxaana intaynu midaysano khilaafkaa la iska daa khilaaf hadduu yimaado waxaa imaanaya dhib baa imaanaya ummaddu inay mido wactasimu bixablillahi jamiica walaa tafaraq baa ilahay xarga ilaahay qabsadeen hana kala tegnin khilaaf marka laga hadlayo midnimo marka laga hadlayo waxaa shinida oo kale baa lasoo qaata aboorka oo kalea lasoo qaata shinida toorteeda intay leegta waa aragtay waxayna leedahay malabkay samaysana waa arag aboorka waxa uu dhiso duldulinku dhiso waa aragtay tabartiisana waa arag midnimadaa keenaysa khilaaf la-aantaa keenaysa khilaafkana waxaa loo soo qaataa xaarowaalka oo meel buu xaar u imaanaya midba dhinac buu dhaqaaqaya midba dhinac buu jab intuu jabsado ula dhaqaaqaya sidaasaa la noqonaya haddii midnimadu dhinto oo ummaddu ayan iska dayn khilaafka haddayan ummaddu iska dayn sidaasaa la noqonaya khilaafka halayna ka daayo cid kasta oo khilaaf wadatana khilaafkaa ka soo noqoto war kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga aan qabsano
intaasaan leeyahay horta waxaan rabaa annagu ururada maba aqoonsano tabliiqi baa jiro dadka diinta gaarsa halkaa maraya meel dawladdu intay ku aqoonsato warqad siiso tabliiq baa aqoonsanahay ma jiro ictisaam baa masaajidada joogto halka hadda iga jooga laga tagay meel dawladdu qof siisay warada ururka ictisaam baa aqoonsanahay ma jirto islaax baa jirta meel dawladii qodob ku siiso waa aqoonsanahay ma jirto xer baa joogta rabiiciya halkay deganta xarweyn ku yaala meel dawladuhu waraaqa ku siiyeen ma jirto soo waxaa laga hadlayaa kaliya ururkaanu ma yahay urur hubaysan dadka laylaya sida daacish iyo shabaab ama takfiirka dadku waa gaalo hadduusan mar annaga awsan ummadda dhibaato ku ahayn oo wax shidada ku hayn oo dadka muwaadinka uu ka mid yahay waxyaabaha asalkaana aan la isku diidanayn waxyaabaha faracaadood ee khilaafaad saasa dadka waxaan u gaarsiinaa sidaa iyo waxaas wax culimada iyo wasaaradda cadaaladda iyo niqaash taas u taala laakiin waxa weeye annaga hawshaasu nama qusayso dawladda waraaq uma jirto si NGO-yadii uma samayno meel anaa dawladda wakiilka gobolka jooga adeer anagu meel qoraala oo loo leeyahay waxa weeye mamnuucu waxaa laga fakeray waxaan ka hadlaynay annaga waxaan ka aaminsanay inay takfiir yihiin waa takfiir baa la yidhi qoraalka dawladdana waxaa ku qoran takfiir yahay haddaad akhrisay waxay qirteen takfiir ahayn waa kaa meediyaha la hadlaya dawladdu waxaa mamnuucay waa takfiir ururka takfiirkaa baa la yidhi takfiirna maaha annagu urur ma siino qolada aqoonsi ma siino ururkaasoo takfiira ku qoran qoraalkii waan hayaa ku jira ururkaasoo takfiira qolada annagu ma siino aqoonsi ma siino soo waxa weeye dadka kan ummadda tan ururkaanu dhibaato ma ku yahay muxuu asal diinta ka aaminsan yahay dawladnimada iyo annaga seebta ka u arkaa ma islaam buu arkaa bas inay gaala yihiin waad maqlayseen marka wax shidaahi ma jiraan dalka nabad iyo wuxuu u baahan yahay xasilooni muwaadiniinka hoostana wuxuu baahan xaq helo oo uu nabad helo in meel loo socdo waa loo baahan meel loo socdo loo baahan insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan ay u soo baxaan ummadda anigu waxaan ka waxa gudoomiyaha gobolka ummadda ma gudoomiyo ah gudoomiyaha waan xukumaa ammaanka cidaan wax u dhimayn iyo ummadda wada noolaanshaheeda ama aan diin kristaan fulilayn oo diinta mabaadida diiniga aan waxba u dhimayn oo aan wax amisan waxaan ku takoorno hadda anu garan maayo nimanka waa wada hadalay aniga laftayga waxaan ka aaminsanaa wax kala soo baxay dawladana u sheegnay kan soo wada hadalay inta hadda aan halka ka sheegayo madaxweynaha oo kusimaha dalkaay waa la wadaagay qorshe ku-xigeenka culimada laftigeeda waa u sheegay waxa warxumow dadka in loo kala sheekeeyo maaha dadku wuxuu u baahan yahay wada socod iyo in hore loo socdo ummaddan annagu waxaan ka shaqeynaa midnimadeeda kala tageeda kama shaqeynaa saarka xafiiska magaalinta takfiira waxay dhawaaqay in uu ka baxay ururkaas xabsiga markaa laga keenay horay deegaanka way u joogeen buntland oo dhan maxaa ninkaa ogyahay aniga gobolka nugaal baan kaala hadlaya gobolka nugaal ninkaasaa joogay waana soo qabanay kadibna wuxuu garabsaday inuu yahay fakirkaas inuu qaldiya ka noqday isagoo hore ah takfiirka maxay diidaysa nimankaan oo kale in hal takfiirku waxay yiraahdaan lama takfiirku waxyaab asalka waa isku khilaafsan yahay dad adigu aadan ogeyn baan kuu sheegaynaa neefka adoo islaam breed xalaal maahan buu leeyahay haddaa salaamu calaykum tilaahi wa calaykum asalaam kuma oranayo islaam maaha looga jawaabi karo waxyaaba asalkaa baa la isku hayaa salaadii kula tukan maayo marka kaas wey kaas dawladda wasiirka amniga aad weydiinaysaa iyo xukuumadda iga sarreysay iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar anu nugaal baan ka hadlay